kulanti wanaagsan daawadayaal. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa mar waliba sida aad noo dhiirigelisaan aadna noo garab taagan tihiin. Haddaba maanta maxaan idin haynaa? Haddaba daawade, waxaa dunidan aanu ku noolnahay ka dhaco si maalinle ah dhacdooyin la yaab leh, waxaana loo diiwaangeliyaa haddaba sida ay mar waliba u kala horeeyaan ayna u kala xiiso badan yihiin. Waxaa haddaba aynu maanta dib u milicsan doonaa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee dunidan ka dhacay, waana sheekada ku saabsan ay loo doortay duq magaalo. Waxa uuna ka arrimiyaa eygan magaalo caan ah oo lagu magacaabo Cormorant. Magaaladan oo ka tirsan Minnesota, cariga Mareykanka. Haddaba waxaa loo doortay si cod aqliyad ah eygan muddo tiro 4 jeer ah. 2014 ayay ahayd qabashadiisii xilkiisii koowaad, waxa uuna xafiiska magaalada si buuxda ugu arriminayay 4 sano oo loo wada dooranayay si buuxda oo musuqmaasuq uusan ku jirin. Eygan dadka magaalada ku nool waxa ay ugu yeeraan duqa magaalada The Biggest Shark, Great Bernese Dog, waxaana la sheegayaa in uu xafiiska isaga tagay ka gadaal markii uu howlgab noqday, waxaana uuna jirsaday 91 sano. Waxa ayna ahayd 2018 markii lagu dhawaaqay howlgabnimadiisa. Waxaa iminka uu qorsheynayaa baa la leeyahay in uu qoro buug, waxa uuna kaga faalloon doonaa howlkarnimadiisii xilkii uu hayay xilka magaaladaas. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin la socodka mar walibana sida aad noo dhiirigelisaan.